madaxweyne ku soo dhawow Minnesota saacado kooban baad nala joogtaa laakiin qalbigayaga iyo maskaxdeedu waa ay kula jirtaa aadna waanu kuugu mahad celinaynaa inay noqoto Minnesota meeshii koowaad ee waqooyiga America aad nagala soo qayb gasho ama aad go'aansatay inaad booqasho ugu timaado wa barakaatu salaanka gadaal caawa waa habeen aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u qiimo badan dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Minnesota iyo magaalooyinka ku dhowdhow aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa qadarinta iyo soo dhaweynta iyo farxadda iyo qalbi samaanta aad muujideen iyo Soomaalinimada intaba waa ka mahad celinayaa aad iyo aad dadkeenu maanta waxay joogaan heer ay gaareen dulqaadka inay isu dulqaataan oo aan waayo aragnimada xikmadda dhahaysa adduunyadu waa 3 maalmood waa shalay oo la soo dhaafay maanta oo la jooga iyo berri saddexdaas unbay adduunyada ka koobantaa shalay waa naga tagtay naguma soo noqonayso waxay leedahay wanaaggeedu muxuu yahay waa wax ka barasho wixii naga khaldamay shalay inaanay maanta naga qaldamin wixii noo hagaagay shalane inaanay naga fakana aan sii xoojinno oo aan sii horumarino maantana inaan u diyaar garowno annagoo casharkaas qaadanay berri sidii aan u sii qurxin lahayn dadka Soomaaliyeed intaasay maanta garteen ayadoo wax walba waaye aragnimadii shalay lagu salaynayo ayaa maanta waddo cusub in la furo wax cusub in la bilaabo dulqaad badan la muujiyo berrina loo diyaar berri oo mustaqbalka ah inayna dhaafto miyaan diyaar u nahay aan ka fikirna marka muxuu ahay berridaas quruxda badan ee soo socoto inaan ku mashquulno wixii naga halaabay wixii aan cafi karno inaan cafinno wixii aan la cafi karina waxaan u leenahay xeer iyo nidaam iyo qaab shuruuc casri ah oo dawladnimo inaan kuwa ayagana aan muxuu ahay aan ku salayno laakiin aanan isqabqabsi iyo isjijiid israaracun aanan ka shaqaynin dulqaad dawladnimo qurxan Soomaaliya degan oo mid ah oo sharaf badan leh soo ma rabno qiimiyay leedahay u baahan in la bixiyo there is a price to pay in order to get that good Somalia price kaasi beesa ma ahan maxaan ku yiraahdaa dahab ma ahan wax kale ma aha price kaasi waa dulqaad iyo isjacayl inaan isu dulqaadanno iyo inaan isjeclaanno waa price-ka aan ku heli karno Soomaaliya qurux badan oo maxaan ku yiraahdaa sidii aan rabnay iyo wixii aan ka rabnay iyo wixii aan shalay soo aragno quruxda badnaa inaan dib u helno maanta Soomaaliya shalay way ka fursad badan tahay kumanaankan Soomaalida ah oo wax baratay oo adduunyo casri ah oo nolol casri ah ka jirta aragtay ee maanta doonaysa Soomaaliya sida Minnesota looga nooliyo kar in looga noolaado inay gaarsiin karto runtii dalkan booqashada aan ku nimiday dhowrkii maalmood aan joognay si aan caadi ahayn oo aad iyo aad u weyn ayaa naloo soo dhaweeyay oo aan runtii dhihi karo dalal badan aan soo booqana bariye la soo dhaafay sidaan oo kale nalooma soo dhaweyn runtii aan dhihi karo guri kasta iyo xafiis kasta iyo golo kasta oo talada Mareykanka ay tiilay waana la geeyay guud ahaan isku soo ururi meeshaan waxaan ka noqonaynaa safarkan safar aad iyo aad u guuleystay asigoo ah ma aha guushiisu inay ku kooban tahay xiriirka iyo cilaaqaadka cusub ee soo noqday ee Soomaaliya iyo Mareykanka ma aha laakiin cilaaqaadkaasi soo noqday wuxuu furo u yahay meelo kale oo badan ayuu furo u yahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dawladda Mareykanka safaaradeedii ayay dib Muqdisho uga furaysaa annaguna safaaraddeena Washington dib aan u furaynaa hadii aan leeyahay waxa intaas dheer oo aan rabaa dadka reer Minnesota inaan muxuu ahaayay aan ugu bishaareeyo inaan halkaan qonsuliyad ku yeelan doono hadii aan leeyahay
ka shaqaysa danaha muxuu ahay danihiina iyo isku xirka Soomaaliya iyo muxuu ahay community-gan sharafta badan ee muxuu ahay halkan joogta marka taasna hadii alla yiraahdo waad arkin doontaan waqti gaaban baan naga xiga hadii alla yiraahdo muhiimadda koobaad ee dawladda ay leedahay waa amniga waa fallaartii salka ku tiila waay amni markii la helo familieskan iyo caruurtan iyo akhyaartan iyo odayaashan dhaxantu meesha ay ku dishay way soo noqon lahaayeen haddii laakiin amni aanu jirin wadada la mari karin cawada aadan hooyo karin qajaf meel haddii ka yeerto ma lagu soo socdaa aad isleedahay yaa soo noqon karayo waxaan muhiimadeenna koobaad saarnay in dalku amni helo oo amniga la hormariyo muhiimadana la saaro xoog iyo xoolo waxaan heli karnana inaan isugu geyno amniga intaas kadib haddii alla yiraahdo dawladdu dhinaca amniga waa dhinacaas waxa kaloo muhiimadda labaad ee dawladdu ay saartay ay tahay in reform lagu sameeyo ama dib u eegis dhinaca garsoorka judiciary-ga in reform lagu sameeyo si cadaalad la jaan qaadi karto system cadaaladeed oo maanta duruufaha Soomaaliya maanta jira la jaan qaadi kara loo helo arintaas bilowgeeda waxa ah professorkii Abdiwaahidna maalin dhaweeto uu xamar uu booqasho ugu yimid inuu noo yimaadaan ka codsanay xamar uu noogu yimid muddoona la soo joogay uu soo noqday haddana uu noqon doonaa waxaan qabanaynaa shirkii ugu horeeyay dhowr shir oo isdaba jooga oo national level ah oo dialogue dalka sidii dib loogu dhisi lahaa ah looga hadlayaa jira shirka ugu horeeyay waxaan rabnaa inaan ka dhigno midkaas looga hadlayo arintaas judiciary-ga garsoorka Soomaaliya sidee loo hagaajiyaa oo loo helaa garsoor sax ah waxaan rabnaa dadka mutakhasisiinta ku ah arrimaha garsoorka inaan shir ugu yeerno xamar la isugu yimaado 150 ilaa 200 oo xeel dheere ama khabiir oo garsoorka yaqaan inay intii isu yimaadaan miiska la soo saaro garsoorkii Soomaaliya ee halka inta lagu kala fanada la yiraahdo intaana waqtiga la socon kartaa intaan waa la bedelayaa sidaana loo bedelayaa dadka qabanaya sidaanay noqonayaan waa sidaas لأن أمنيga ma adkeyn karno ma xoojin karno ma joogteyn karno haddii aanan system cadaaladeed oo barbar socdo aanu jirin haddii aanu system cadaaladeed oo shaqaynayo oo dadku ku kalsoon yihiin oo si fiican loo qaabeeyo aanu jirin dadka ama waa lagu xadgudbayaa ama ayaga wax ku xadgudbayo marka si aanay u dhicintaas oo loo ilaaliyo dantii dadka isla markaasna dadka muxuu kara qaabka daran loo celiyo ayaa muxuu muhiimadda labaad waxaan u saarnaa arinta garsoorka Soomaaliya ciidan la'aan ma ahaan karto amnigeeda jiritaankeeda midnimadeeda ayay ciidan ugu baahan tahay waxa yaalahay waxa waaye war dadkaani waligeeda muxuu ahay la soo qaab dareynay qaab darro kale uma noqoto reer hebel haddaan nahay waligeeda marada inta loo balfiyaa dadkan wax maslaxada ay ku gaareen ma laha dadka fursad ha la siiyo degmadan qabaa'il Soomaaliyeed degan qabaa'ilka degan way isgaranayaan haddii ay kala badan yihiin siday u kala badan yihiin isgaranayaan geedka hortiis inta fariistaan ay tashadaan 25 qof ama 15 qof council degmadeena noo ah ayaga noo talinayo ayaga noo dooran inay dhigi karaan aan rabnaa meeshaan u socono rabno waa meeshaas waxaan rabaa marka fadlan ayaan loo dhagal nuglaanin propagandada iyo dacaayada iska magaciisa mataal haddaan ka soo qaado waxa la yiri oo aad loo iibiyay been fakatay runimo gaartaa la yiri madaxweynaha beledweynuhu intuu tagay yaa wuxuu yiri reer beledweynow maamul sameeysta reer Kismaayana annaga u sameeynayno wax jira ma aha wax jira ma aha wax jira ma aha ilaahay mahadiis adduunyo casri aan ku noolnahay warkii aniga aan beledweyne ka iri asoo maqal iyo muuqaal oo duuban yahay waa been warkaasi waxba kama jiraan ma dhihin
inaan dhahno diyaar u mihi dadka Soomaalida dhammaan madaxweyne u ahay dhammaantoodaan rabaana inay guulaystaan dhammaantoodaan rabaa inay awood u yeeshaan ay ku gaari karaan go'aan aayahooda iyo ilmahooda cidda u talinayso ay go'aan ku gaari karaan nin marka awoodi kari waayay ra'yi siyaasadeed inta la yimaado dadka inuu qanciyo oo wax u sheego oo wax qabad uu tuso oo ku gabanaya reer hebel haddaan nahay waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan qabaa'ilka Soomaalida dhammaantood sharaf iyo haybaday leeyihiin waan ka soo quusannay Soomaali haddaan nahay waan ka rajo dhignay wax reer gaara u roon oon reerka kale u roonayn inaan helno waa soo dhignay waxaan raadiyo haynaa oraahda waxa xigmadda aan isticmaalaynaa wixii hooyada uur kale u roon ayaa cunuga uurka ku jirana u roon wixii Soomaaliya u roon ayaa reer kasta oo Soomaali ah u roon waxaan Soomaali u roonayn reer gaarahay u roonaan karaan ma jirto marka waxaan leenahay aan ku mashquulno aan jirino waxa Soomaaliya u roon maanta maalintaas aan joognaa waxaan rabnaa wax Soomaaliya u roon Soomaaliya wada guuleyn karo ma dhacayso reer gaara iyo degaan gaara iyo gobol gaara inuu guuleysto Soomaalida inteeda kana ay fashisho waana soo taabannay waa soo taabannay walaalayaal yacni degaanaa jiro maanta Soomaaliya ku yaallo oo xasiloon oo deganaansho leh laakiin haddana Soomaaliya oo midahoo dawladda wixii lagu heli karay ma haystaan way ka maqan yihiin Hargeysa ka soo bax Muqdisho ka soo bax muxuu ahay Boosaaso ka soo bax Beledweyne iyo Kismaayo midka doonta ka soo bax daarad haddaad soo raacdo Soomaaliga yaa tahay iska daa intaas baasaboor Maraykan haddaad qaadato xataa Soomaali America